رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلوات ربي وأزكى تسليماته عليه. وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أو كما قال صلى الله وسلم وبارك عليه. walaalyaal, weli waxaanu ku dhex jirnaa silsiladii tixanaha ahayd oo mar walbaba aanu ku soo qaadan jirnay mowduuc gaara si aanu uga faa'iidaysanno bishan ramadaan ee barakaysan. maantay mowduuca aanu ku soo qaadanayno insha allahu tacaala silsiladeennii tixanaha ahayd waa mowduuca la yidhaaho fiqhu siyaam ama axkaamu siyaam, soomka iyo fiqhigiisa. waxaanu ka hadli doonaa insha allahu tacaala soomku cidda uu ku waajibo iyo shuruudda uu ku waajibayo, waxyaalaha nawaaqidu siyaam ah ee soomka buriya, iyo dadka qadaha lagu leeyahay, iyo dadka qaarkood oo lagu leeyahay qadaha iyo inay fidye ay iska bixiyaan. soomka walaalayaal, guud ahaan waxaa la farad yeelay sanadkii labaad ee taariikha hijriga ah ayaa soomka la waajib yeelay. 13 sano oo nabigeenu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi magaalada maka almukarama uu diinta ku faafinayay ma jirin ramadaan waajib ah. ramadaan waajib ma jirin. markii madiine uu usoo wareegay rasuulku sala allahu calayhi wasalam sanadkii hore oo ugu horreeyey caamul hijri, wax ramadaana oo waajibuhu ma jirin. sanadkii labaad ayaa la farad yeelay ramadaanka oo la waajib yeelay taariikha hijriga ah. waa taariikha hadda aanu ka marayno 1437 sano ayaanu maraynaa taariikha hijriga ah. 1437 markii laba laga jaro 1435 sano ayaa soo hartay, intaas ayaa ramadaanku horta uu waajib yahay. nabigeena marka sala allahu wasalam wabaaraka calayhi wuxuu soomay 9 ramadaan ayuu soomay rasuulku sala allahu wasalam wabaaraka calayhi. kabacdina ilaahay ayaa oofsaday rasuulka sala allahu wasalam wabaaraka calayh. haddaba mowduucan aanu ka hadlayno walaalayaal waa mowduuc aad qof walba ee muslim ah iyo gabar kasta ee muslimad ah ahmiyad weyn uu u leeyahay. waxaana laga maarmaana dhammaanteen inaannu mutaabacayno oo mowduucan aanu dhegaysanno. maxaa yeelay qofku hadduu alla jahli ku caabudo, waxa weeye dhididkii iyo daalkiina wuu ka dhammaaday. waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka aqbalayo oo acmaashiisa ah ma jiraan. waxaa laga yaabaa qofku inuu isku hallaynayay salaado fara badan iyo soom fara badan iyo xaj fara badan, inuu islahaa qabrigaaga iyo qiyaamaha waad ugu tegi doontaa iyagoo ku anfacaya. haddana wixii haddii aan cilmi aysan ku dhisnayna waxaa dhici karta siduu filayay si ka duwan oo naxdin iyo amakaag leh inuu aakhiro kala kulmo la yidhaaho waxaad samaynaysoo dhan waa hal bacaad lagu lisay oo lagama aqbalin. sababtu maxay tahay? shuruuddii iyo arkaantii loo dejiyey cibaadadan iyo habkii uu sharcigu ugu talagalay ma aadan soo marin. maxaa yeelay wax walba alle subxaanahu wa tacaala wuu habeeyey, wuu nidaamiyey habka loo caabudayo iyo dariiqa ilaahay ridihiisa lagu gaaro subxaanahu wa tacaala. shuruuduu ilaahay u xiraya arkaan iyo waajibaad. sidaas awgeed cibaadadaadu haddii 10 sano iyo 100 sano aad iska wadid laakiin cilmi aysan ku dhisnayn laga aqbali maayo. taana waxaa daliil u ah oo tusinaya xadiiskii imaamul bayhaqi iyo imaam axmed labadooduba ay warinayeen min xadiisi xudayfata bni alyamaan
صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيهقي وحو سنن كيسا كوريي saxaabiga la yidhaaho xudayfatu bnulyamaan ayaa isagoo meel fadhiya oo masjidka fadhiya ayaa nin agtiisa ku tukaday. saxaabigu wuu fiiriyey ninkani siduu u tukanayay, wuxuu arkay saxaabigani qaabka ninkani uu u tukanayo in uu yacni sharciga islaamka uu khilaafsan yahay oo arkaantii laga doonayay qofka muslimku inuu dhammaystiro salaadiisa inay wax ka maqan yihiin oo salaadu ay ka jaban tahay ayuu saxaabigana arkay oo u dareemay. wuu u yeeray, wuxuu yidhi kaale, wuxuu yidhi mataa kam tusallii midla haadihi salaa, salaadan imise sanaad qaabkan u tukanaysa, imise sano qaabkan hadda aan kugu arkayay oo aan toosnayn oo salaadu ay kaa jaban tahay, imise sanaad salaadan qaabkan u tukanaysay buu yidhi. markaasuu wuxuu yidhi salaadan ilaa 40 sano ayaan habkan ku waday buu yidhi, 40 sano qaabkan aan u tukanayay. markaasuu wuxuu ku yidhi xudayfatu bnulyamaan low mutta calaa gayri sunnati muxamed sala allahu wasalam wabaaraka calayh, haddaad sidan ku dhiman lahayd uu yidhi waxaad ku dhiman lahayd jidkii nebi moxamed jid khilaafsan, jidkii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam jid khilaafsan oo baatil ah oo ilaahay aada uga fogaanaysid oo naar aad ku gelaysid ayaad ku dhiman lahayd buu yidhi, saan haddaad salaada kusii wadi lahayd ilaa aad ka dhimato. marka ilaahay subxaanahu wa tacaala saxaabiganuu tusay ninkan, laakiin ninkanu hadduu sidaa ku tukan lahaa yacni ilaa uu ka dhinto salaadiisa waxay noqon lahayd salaad uu naar uu ku mutaysanayo, iska daa inuu ilaahay ridihiisa iyo jannadiisa uu ku gaaro. haddaba marka waxaa la mid ah cibaado kasta noocaas uu haddaad soomi jirtay 40 sano iyo 50 sano iyo 60 sano laakiin habkii sharciga iyo fiqhigii siyaamka loogu talagalay aadan ku soomi jirin mutta calaa gayri sunnati muxamed sala allahu calayhi wasalam, waxaad ogaataa inaad ku dhimanayso jidkii nebi moxamed jid khilaafsan. haddaba sidaasaa mowduuceennu muhim u yahay si aannu ugu dhimanno cibaadadeeduna ay u waafaqdo hadyigii iyo jidkii uu jeexay nebiyullaahi moxamed sala allahu wasalam wabaaraka calayhi. sidaas ayaa marka mowduuceennani ahmiyad gaar ah uu u leeyahay. soomku markaa wuxuu soo maray walaalayaal maraaxil kala duwan ayaa soomku soo maray. habkan innagu hadda aannu u soomayno waxaa jiray islaamka bilowgiisii hab ka adag inay asxaabtu ay u soomi jireen, laakiin ka bacdi la nasakhay oo xukumkii la fududeeyey maadaama la arkay dhibaato aad u baaxad weyn in saxaabadu ay kala kulmeen habkan loo soomayo. waxaa imaamu albukhaari raximahullahu tacaala saxiixiisa uu ku warinayo in qaabka markii hore loo soomi jiray uu yahay qofku hadduuba seexdo oo uu hurdo ama salaada cishaha uu tukado ka bacdi inay xaaraam tahay inuu wax cuno, wax cabo, xaaskiisa uu yacni la jiifto oo xaaskiisa uu isticmaalo. waxyaalaha qofka sooman ka xaaraam ahaan jiray oo dhan ayaa xaaraam ka ahaan jiray salaada cishaha ka bacdi ama qofku hadduu seexdo, labadaas midkii usoo hormara. sidaas awgeed imaamu albukhaari raximahullahu tacaala wuxuu saxiixiisa uu ku sheegay nin saxaabada ka mid ah ayaa wuxuu u yimi beeraleeyuu ahaa. ninkaasi marka beertii ayuu maantoo dhan qodayay, wuuna soomanaa, beertuu ka shaqaynay. gurigiisuu yimid, gurigiisa markuu yimid ayaa hurda ay la tagtay, intuu isyiri iskala bixi ayaa hurda ay la tagtay. islaantii intay cashada usoo karinaysay waaba hurdayba. islaantii way u timid iyadoo cashadii usoo diyaarisay, markaasay toosisay, markaasay ku tiri oo ma huruday? waan hurday yidhi. dee mar haddaad huruday waxay tiri sida habka soomku hadda uu yaallo waa kaa xaaraam, cunto iyo cabitaan oo dhan waa kaa xaaraam. ninkii saxaabiga ahaa soomkiisii uu iska sii watay, beertiisii haddana u laabtay, wuu mir daboolmay, meeluu isaga dhacay. kabacdi alle subxaanahu wa tacaala maadaama dhibaatada iyo rafaadkan lagu jiro saxaabadii alla uu dareemay subxaanahu wa tacaala, ilaahay wuxuu soo dejiyey qowlkiisa uu yidhi jalla sha'nu wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayd alabyad min alkhayd alaswadi min alfajr huma atimu siyaama ila lleyl. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi iska cuna oo iska cabba ilaa laga gaarayo waagu uu ka baryayo.
oo salaada subax ay ka dhalanayso iska cuna oo iska cabba yacni wixii u bannaanaan jiray qof aan soomanayn oo dhan ayaa habeenkii oo dhan idin bannaan sidaasaa marka alle subxaanahu wa tacaala uu soomka uu uga fududeeyey habkii iyo nidaamkii markii hore soomku uu ahaan jiray haddaba waxaa jira walaalayaal soomka shuruud yuu ku waajibaa horta soomku horta yuu ku waajibaa kow soomku wuxuu ku waajibaa awalan shardiga ugu horeeya horta qofku waa inuu yahay qof muslim ah qof muslima inuu yahay waa shardi qofka gaalka ah gaalka ugama bilaabayno soom laakiin waxaanu ku bilaabaynaa marka hore horta tawxiidka soo galo xerada islaamka soo gal ayaanu leenahay marka qofka gaalka ah soomka waa loo ciqaabi aakhiro markuu dhinto gaalka waa loo cadaabi laakiin hadda waxaa ka horeeya tawxiidka waxaa kaloo shardiga qofka soom ku waajibayo an yakuuna baaliqan waa inuu qaangaar yahay hadduu qofku carruur yahay oo uu weli uusan qaangaarin soomku waajib kuma aha waxaa kaloo shardiga an yakuuna caaqilan qofku waa inuu caqli leeyahay qof qaangaar ahoo weyn oo waxaa jira iska waalan oo miirkii iyo maskaxdii xaddu takliif ama manaadu takliif waxa shareecaduba qofka ay kala khidaabto ama ay kala hadasho waa caqliga caqligii takliifku uu ku xirnaa hadduu qofku waayo oo uu iska waalan yahay soomku waxba waajib kuma aha sidaas awgeed dadka waalwaalan ee yacni guryaha qaarkood jooga ama magaalada maraya wax ku waajibaya male laa qadaa walaa fidya inuu hadhow haddii ilaahay maskaxdiisa u soo celiyana yacni lagama rabo wax qada ah wax raashina oo ku waajibahayaana ma jiraan waxaa kaloo shardi ah an yakuuna qaadiran cala asawm qofku waa inuu soomka awood u leeyahay waxaa jira qof maskaxdiisu joogto oo yacni haddana qaangaar ah laakiin soomkii aan awood u lahayn cudurdaar jira awgeed oo awoodda waxaa weeye isagaan awood u lahayn ama sharcigii markii loo fiiriyo jaanibka sharciga ayuusanba awood u lahayn maalan qofkii tusaale waa iska xanuunsan yahay qofku hadduu iska xanuunsan yahay soomku waajib kuma aha haddii sidaas oo kale musaafir uu yahay qofku oo mashaqada safarka iyo dhibaatada uu dareemayo dhibaato safar isagana soomku waajib kuma aha laakiin waanu ka hadli doonaa qofka xanuunsan xanuunkiisa waxaa loo kala qaadi laba arrimood xanuunkiisu inuu yahay xanuun dhakhaatiirtu ay ka dayriyeen oo la yidhi xanuunkani lagama bogsado xanuunkan lagama bogsado la yidhi tusaale ahaan qofkii kaankaraa ka galay caloosha ama wuxuu ka galay yacni dhuuntuu ka galay hunguriguu ka galay meelaha halis ahaa kaankara uu ka galay ama waa qof lambarka yacni xanuunkan la yidhaaho sonkorowgu lambarkiisu uu ku weynaaday oo awood aan u lahayn inuu soomo xanuunkan sonkortana lagama raysto sida dhakhaatiirtu ay sheegaan ilaahay laakiin subxaanahu wa tacaala awooddiisa iyo karamkiisa iyo fadligiisa wax walbuu alla awoodaa subxaanahu wa tacaala haddii xanuunada noocaas oo kale ah oo dhakhaatiirtu ay leeyihiin qofkani daawoba ma lahan bixasabi cuquulihim wa bixasabi maa aataahum allahu subxaanahu wa tacaala min alcilmi alqaliil waxa cuquushooda iyo caqligooda iyo cilmiga ilaahay uu siiyey markay cabiraan ay dhakhaatiirtu sheegaan qofkani in cudurkan uusan ka bogsanaynin qofkaasi waxaa laga bixinayaa raashin oo maalin walba waxaa laga bixinayaa hal koombo waa koombadan ay ku qoran tahay c b c ay ku qoran tahay halkaa koombo raashina ama ha noqoto digir ama galley ama beriis ama qamadi ama sarreyn yacni raashinkana waxaa loo baahan yahay inuu noqdo raashin aan shiidnayn alxabu saliim ayaa laga bixinahay sida gadaalba aanu ku sharxi doonno in sha allahu tacaala qofka haddii cudur sharciyuhu uu yacni ku istaago sidaas oo kale soomka isaguna waajib kuma aha tusaale ahaan haweenaydii waa qof yacni xaa'ido ah oo dhiigkay xaydkaa ka yimi xaydaa ka socda ama waa qof nufaso ah oo umulay ku jirtaa gabadha iyadana soomku waajib kuma aha laakiin labadaba waxaa waajib ku noqonaya inay dib ka soo qadayaan oo markuu dhiiggu ay ka qubaysato ayaa waajib ku noqonaya inay soo qadayaan sida gadaal aanu ka ogaan doonno oo aanu ku faahfaahin doonno in sha allahu tacaala waxaa marka muhim ah inaanu ogaano mar walbaba oo axkaamta soomka ka mid ah
soomka wuxuu iska leeyahay yacni waxyaalo lagama maarmaan ah oo inaad samayso mar walbaba ay muhim tahay haddaadan samayna soomkaagu uusan ansaxaynin kow waxaa ugu horeeya anniya soomka haddaadan niyeysan wax ku ansaxayahay ma jiraan niyadaas weliba waxaa loo baahan yahay habeen kasta waa niya mutakarrira fi kulli laylatin min layaali ramadaan habeen kasta oo habeenada ramadaanka ka mid ah waa inaad niyeysato ramadaan berri inaad soomi doontid habeenkii kale markaad gaartay haddana waa inaad niyeysato haddaad niyadii haddaad halmaanto tusaale ahaan oo aadanba niyeysanba berri inaad soomto niyadii qalbiga kuma aadan qabanin berri inaad soomi doonto hadde markaa waxaa waajib kugu noqonaya wax loo yaqaano al-imsaak imsaak maxay tahay sidii qof sooman oo kale dhaqankiisa inaad u dhaqanto waxna ma cuni kartid waxna ma cabi kartid xaaskaaga uma tegi kartid qof sooman oo kale ayaad xagga sharciga aad ka tahay mana soomanid oo soomkii dee niyadii ayaa kaa maqan oo ahayd yacni rugni asaasi ahaa maalintaasna waxaa waajib kugu noqonaya niyada aad halmaantay inaad dib ka soo qadayso taasna waxaa tusinaya xadiiskii abu daawuud iyo tirmidi labadooduba ay warinayeen oo rasuulku sala allahu calayhi wasalama uu ku yidhi man lam yujmic qabla alfajri falaa siyaama lah salaada fajarka ka hor salaada subax intaysan dhalanin ka hor qofkii aan niyeysan soomka inuu berri soomi doono aan niyeysan wax soomoo ka ansaxaya ma lahan uu yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam xadiiska abu daawuud iyo tirmidi labadooduba waxay ku wariyeen sunanka ayay ku wariyeen sidaas awgeed niyadu waa laga maarmaan haddii qofku uusan niyeysanin oo soomkii inuu berri soomi doono uusan niyeysanin dadka qaarkood waxaanu aragnay inay niyada ay iska fududaysanayaan oo waxa niyo la yidhaha habeen walba in la niyeysto soomka aysanba la socanba waxay la mid tahay xadiiskii xudayfa binulyamaan ninkii agtiisa salaada ku tukanayay oo dhahaya 40 sanaan salaada tukanayay saxaabiguna uu ku yidhi saa haddaad ku dhiman lahayd jid khaldan oo jidkii nabiga khilaafsan ayaad ku dhiman lahayd sala allahu wasalam wabaaraka calayh marka niyada nafteeda waxaa shardi ah an takuuna jaazima niyadu waa inay tahay niyo labac iyo shaki waa inuusan kaaga jirin haddii niyadu shaki uu kaaga jiro dee go-aan ma qaadan kartid haddaadan go-aan qaadan niyadaadu ma ansaxayso niyadu haddaysan ansixinna soomkaaga ayaan ansixin tusaale ahaan qofku habeenkii shacbaan uu 30 ahaa ayuu wuxuu ku shakiyey berri tolow ramadaan bilowgiisii miya mise waa 30 buuxadii shacbaan ayuu ku shakiyey berri markaasuu wuxuu qalbiga ka niyeystay kolley waxaan niyeystay buu yidhi hadday ramadaan noqotana inaan soomo haddaysan ramadaan noqonna oo shacbaan dhammaystirkiisa ay noqotana haddee maba soomayo markaa saasuu habeenkii uu ku jiiftay niyadaa go-aanka jaasimada aan ahayn ayuu ku jiiftay biqudratillaahi berridii ramadaanayba noqotay waxba kama jiraan qofkaa soomkiisa laakiin waxaa ku waajibaya imsaak xurmatan lishahri ramadaan si bisha ramadaan loo xushmeeyo waa inuu afaysto oo cunto iyo cabitaan iyo waxba ma samayn karo maalintaana inuu dib ka soo qadeeyo ayaa waajiba limaada maxaa dhacay niyadii jaazima ma aha ma go-na niyadii niya jaazima oo yacni go-aan qofkani uu ku gaaray ma aha sidaas awgeed waxaan mar walbaba laga maarmaan ah in aan niyada jasmino oo wax shakiya niyadu aysan nooga jirinin waxaa marka muhima haddana nuqdada kale inaanu dul istaagno ama aanu ogaano ay waajib tahay soom goormuu bilowda bidaayatu siyaam soomku wuxuu bilaabanayaa min tuluuci alfajr wuxuuna ku dhammaadaa guruubu shams fajarka markuu dhasho bis waxna ma cuni kartid waxna ma cabbi kartid xaaskaaga uma tegi kartid waxyaalaha yacni nawaaqidu siyaam oo dhan oo soomka buriyo oo dhan ma taaban kartid waagu yacni salaada subax ama fajarku markuu dhasho
waxyaalaha aad weydiinta maalmahan ugu batay oo dadku as'ilo ay iga soo weydiiyaan waxaa ka mid ah oo dadka qaarna ay u iftoodaan laakiin fatwo khaldan ah. dadka qaara waxay ku leeyihiin war sheekhow salaadii subaxa ayaa aadaanku nagu dhacay innagoo suxuurtii gacanta kula jirna ama weelkii cabitaankii caanaha annagoo kor u hayna ayaa waagu korkeenna ka dilaacay oo salaadii subaxa ay nagu dhalatay ama aadaankii hore uu nagu yeeray. dadka qaara waxay noo jawaabeen bay yidhaaheen inaannu iska sii dhammaystiran karno raashinka waxa ku jira ama galaaska inta nagu jiro oo cabitaana caano ah inaannu dhammaystiran karno. jawaabtaasi walaalayaal waa khalad. salaada subaxa hadday dhalato wax aad dhadhamin karto ma jiraan, waa kaa xaaraan. maxaa yeelay soomkii ayaa bilowday, soomkii ayaa bilowday. dadka sidaa u iftoonaya, dadka cawaamta ah, waxay ku khaldanmeen xadiis fahamkiis. xadiiskii abu hurayra ee abu daawuud uu sunankiisa ku warinayay ayay si khaldan u fahmeen. xadiiskaasina wuxuu ahaa xadiiskii nabigu uu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam idaa samica axadukum الnidaa wاlinaa'u calaa yadih falaa yadachu xataa yaqdiya xaajatah. wuxuu yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam qofku hadduu aadaanka maqlo isagoo weelka gacanta ku haya, weelkii yuusan ka tegin ilaa uu ka dhammaystirmo oo weelkii uu ka dhammaystirto oo xaajadii iyo dantii uu ka lahaa ilaa uu weelka ka gaaro. danta uu ka lahaa weelka maxay tahay? inuu cabitaan yacni cabo, cuntadii inuu inta maaragtay isagu uu ka rabo uu ka cuno ilaa dantiisii uu weelka ka dhammaystirto yuusan weelkii ka tegin. xadiiskaas abu daawuud ayaa sunankiisa ku wariyey, waana xadiis abu hurayra uu rasuulka ka wariyey sala allahu calayhi wasalam. haddaba xadiiskaasi wuu jiraa, laakiin xadiiskaas macnaha ama mafhuumka loola jeedaahay muxuu yahay? waxaa noo caddaynaya imaamu lbayhaqi kitaabkiisa sunanka waxa loola jeedo xadiiskaa. anigu ma rabo inaan ra'yigayga ama maskaxdayda aan ku fasiro. imaamu lbayhaqi raximahu llahu tacaala wuxuu yidhi markuu xadiiskaa uu kitaabkiisa sunanka ah uu ku wariyey, wuxuu yidhi wahada in saxa maxmuulu cinda cawaami ahli اlcilm calى annahu salى اllahu عalayhi wasalam calima annahu yunaadii qabla طuluuci اlfajr bxayثu yaqacu shurbuhu qubayla طuluuci اlfajr liyakuuna muwaafiqa lxadiiثi caaئisha wabni cumar qaala wacalى hada tattafiqu الأخبار. wuxuu yidhi bayhaqi wuxuu ogaa rasuulku salى الlahu عalayhi wasalam aadaankaasi inuu ahaa aadaankii hore inuu ahaa ayuu rasuulku ogaa salى الlahu عalayhi wasalam. oo mu'adinkaasaa wuxuu addimi jiray yacni fajarka ka hor. maxaa yeele sida la ogsoon yahay xilligii rasuulka salى الlahu عalayhi wasalam laba mu'adin ayaa masjidka nabigu lahaa salى الlahu عalayhi wasalam. marka mu'adinka hore aadaanka hore markuu ku dhufto weelkiina gacanta uu kugu jiro cuntadii ama cabitaankii iska dhammaystiro wey. maxaa yeele lama gaarin aadaankii kaa joojin lahaa suxuurta. marka aadaanka nabigu uu leeyahay sala allahu calayhi wasalam weelkii hadduu gacanta kugu jiro dantaada ka gaar, dantii weelka aad ka lahayd ka gaar uu leeyahay, waa aadaanka hore oo xilligii salaadii subaxba aan la gaarin aadaanka ka hadlaya. amaa aadaanka dambe oo salaadii subaxuba yacni ka tarjumaya inay dhalatay loolama jeedu yidhi xadiiska, sida bayhaqi uu yidhi. maxaa yeeley wuxuu yidhi waxaan sidaa ugu fasiraynaa si uu u waafaqo xadiisku xadiiskii caaisha iyo xadiiskii cabdullaahi bni cumar oo uu tilmaamay rasuulku sala allahu calayhi wasalam aadaanku hadduu yeero inaan waxna la cuni karin waxna la cabbi karin. sidaasayna wuxuu yidhi labada xadiis ay isku waafaqi karaan. marka dadkan ma aysan arkin tafsiirka bayhaqi fii sunanihi uu xadiiska uu ku fasiray. markaasi dadkii waxay u jawaabayaan aadaanka ugu dambeeya salaadii subax oo dhalatay haddii weelkii adoo gacanta kuugu jiro salaadii subaxa lagugu addimo iska dhereg oo iska wada cuntadaadii cabitaankaagii. dee qofku uba quraacday maxaa soomaho u jira. midda kale fatwadaas waxay ka hor iman, hadalkaas uu ka hor iman naskii qur'aanka oo dhahayay
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر اسكعنا أو اسكعبا إلى فجر كلا جارو أما فجر كهدي لجارو عنت يعبتان مجران مركز تاسنا وإن مر والبابا أنو كبر رجنو وحكلو لوبا هي نقطة كلا وأنو دول استاجنو أنو دوني نوحوي فجر كدلا شديسة وين آد اللي سجاه بيو أو آد اللي سجد داله ضدك هذا سدا يوب بدنيهين سحورتا وحي جوجيان آذان مركي مقلان ومقالة مقدشو آذان ندى كييرا ميت كميدا مركي مقلان أيران بسوي ووحي كو عبر قاتان آذانك مقدشو لغا الدمي تاسي مركا مرنا قفكو آذانك هدو عبر كدكتو مرنا الصحو كدعي كرا مرنا خلطو كدعي كرا محايا لي دادك انت بدن مؤذنين تمقالة مقدشو صلاة الصبح كأدمه انتو دا بدن بقول كيبا سيديتان إيا الشن وحي أدمان وقتي صلاة فجركو مركو رشي 10 دقيقة أما 7 دقيقة كبعدي أدمان مركو وذات كانوا مركو أدنك كله فنايو ومرو فجركي رشي 5 دقيقة أما 8 دقيقة كبعدي مركو فجركو رشي وكبعدي وأدمان مركو أدمايو فجركي مرهرو برشي بقى maxay wadaadku markuu aadimayo waa markuu fajrku dhashay 5 daqiiqo ka bacdi aadaanka ku dhuftaa marka miciyaar ama halbeeg ma noqon karaan aadaamada muqdisho laga aadimo 85% halbeeg uma noqon karaan suxuurta maxaa la rabaa marka inaad adiga fajrka indhahaaga aad ku ilaashatid maadaama waxaan waajib yihiin aakhirana lagu la xisaabtamayo fiiri fajrkii inuu dhashay indhahaaga ku fiiri haddii kale saacadahan la yiraahdo saacadan alfajriga oo tajaarib badan laga qaado la tajribeeyay inay saxan tahay saacada soo iibso yaani si ay ku hagto oo ay kuugu tilmaanto xilliyada fajrka uu dhalanayo tusaale ahaan hadda ramadaankan hadda anagu aanu ku jirno 1437 taariikhda hijriga ramadaankan hadda ku soo beegmay waxa fajrku uu dhashaa 10 saac iyo 29 daqiiqo habeenada qaarna wuxuu dhashaa 10 saac iyo 30 daqiiqo oo habeennimo marka in sida yaani aad daqiiqa si daqiiqa aanu isaga ilaalino yaani fajrka dhalashadiisa iyo waqtiga suxuurteena ay ku dhacayso waa nuqdo aan rabo inaan isku baraarujino haddii marka shaki uu yimaado mararka qaar waad shakin kartaa mas'alatu shaki maxay noqon tusaale ahaan qofkii waa shakiyay wuxuu yiri fajrkii ma dhashay mise ma dhalan isagoo shakiga qaba ayuu suxuurtay soomkiisi waa u jiraa hadduu intuu ijtihaaday asagoo shakisan oo suxuurtii cunay maxaa yeelay li'anna al-asla qaacida fiqhiya waxay leedahay li'anna al-asla baqaa'u layl sida asalka ah waxa weeye habeenkii inuu weli yaani qaybo ay ka baaqi tahay habeenkii weli qaybo inay ka baaqi tahay ayaa asal ah laakiin hadduu qofku ku shakiyo qorraxda dhicitaankeeda waa mas'alo kale tusaale ahaan qofkii uu afuray asagoo shakisan ayuu afuray oo qorraxdii uu fiiriyay wuxuu u maleeyay qorraxdu inay dhacday markaasuu iska afuray ka bacdiya waxa uu cadaatay qorraxdu inay soo jeedo hadda eber way qofkaas li'anna al-asla baqaa'u an-nahar maalina soo socotay Soomaa sida asalku waxa weeye maalintii inay baaqi tahay marka sidaas awgeed hadduu shakiyo oo qorraxda dhicitaankeeda uu ku shakiyo waxa weeye soomkiisii waxba kama jiraan shakigaas hadduuba maragtaahay wax ku cuno marka waxa kale oo muhiim ah nuqdada kale inaan isku baraarujino mufdiraat as-saa'im qofka sooman maxaa soomku uga buri karaa akbarul muftiraat wa al-jimaac waxyaalaha muftiraadka soomku kaaga buri karo waxa ugu weyn uguna khatarsan jimaaca ama kulanka yaani xaaska qofku xaaskiisa uu la kulmo xaaskaaga haddaad u galmooto soomkii horta wuu kaa buray maalintaasna inaad soo qadayso ayaa waajib kugu noqonaysa waxa kale oo waajib kugu noqonaya soomkii markuu kaa buray maalinta inaad dib ka soo qadayso iyo الكفارة العظمى كفارة لو يقاننا واجب أي كون نقول كفارة وحوي
وإن لبا بلود أو حرير أد صومتid لبا بلود أو حريرة إن أد صومتid وواجب صومك هداد أود ويلم ويسو لبا بلود أو حريرة لبا بلود أو حريرة معناه وحوي هدي أد صومتي يعني تسالهان كنتن يو تضوا معلومات أي صومت سدح معلومات كاغر دمانيد markaas iska joojisay soomkii waad soo bilaabi haddana xiriirka macnihiisu waa sida waxaa la rabaa laba bilood oo xiriira inaad soomtid maadaama jamaac bil ramadaan xaaskaagii aad u galmootay oo aad la jiifatay haddii aad awood u yeelan weyso soomka oo xanuun ama jiro iyo waxuun ay jiraan waxaa markaa waajib kugu noqonaysa taa badiilkeedii 60 miskiin inaad quudiso miskiin walbana waxaad siinay hal koombo oo raashina waa koombadan ay ku qoran tahay CBC ama loo yaqaano saliid qumbaha koombada ay ka dhamaatay koombadaas aad dhiibi yani miskiin walba hal koombaad siin waa 60 koombo oo 60 miskiin aad kala siinayso ayaa waajib kugu noqonaya waxaa kaloo waajib kugu noqonaya maadaama dambi ay tahay oo amar ilaahay aad jabisay in Allah aad u toobad keento subhanahu wa ta'ala khaladkaas iyo amarka ilaahay aad jabisid ilaahay inaad u toobad keento ilaahay subhanahu wa ta'ala istighfar aad weydiisato mar dambana aad go'aansatid inaadan ficilka foosha xun aadan dib ugu laabanaynin marka fiqiga siyaamka ama ahkaamta soomku walaalayaal aad ayay u fara badan tahay walidaalika waxaanu ka dhigaynaa muhaadaradan xalqadii labaad ama qaybtii labaad ee fiqh waxaan leeyahay qaybtii koowaad ee fiqh siyaam ayaan ka dhigaynaa waxa insha Allah ta'ala hadii ilaahay waqti uu nasiyo oo ilaahay umriga nagu gaarsiyo waxaan noo ballanaa xalqadii labaad ama qaybtii labaad oo fiqh siyaam inaanu mar kale aanu ku kulmi doono hada wa billahi tawfiiq wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh حافظين ذاكرين قانتين خاشعين ذاكرين قانتين خاشعين مسلمين